خاتمه waxaan soo dhaweynaa sultaanka sultaan Musa waxaan soo dhaweynaa inta dabadeed waxaan jeclahay maadaama hadda la isugu yimid Soomaali badan ay joogto inaan iyaro gabay ah oo wadaniyada qosaya ummadda Soomaaliyeed aan ka taabto marka ku soo dhawaada tixdan yar gabay ah gabay waa dheer yahay laakiin soo yar qaadanaya maadaama waqtiga inuu saamaxay marka waxaan leeyahay hadii jeer sultaanka waxa loo doortaa inuu wax maamulo oo magaraas horumar dadka horumariyo gabaygan waxa weeye markan waxa kaga bilaabaya xaal guracan garsoor iyo hadii odaya loo geeyo gadiinkeeda xaajada haddaan xal laga geysan mar walba la gaaraa halkii daawo loo galay arrinkii guyaashin markuu gabagaboobay marun bay bulshada ka go'an gaafihii cudure wax lagu kumooda markii mar la gijay niman garan wuxuu goobayo ama la guuxayo oo aan go'aashadiisi marnaba golaha keenaynin oo inuu nabadda ka gilgiro gabasyada u qaatay garaad xume gudoon iyo wuxuu ka diraa gacare goorma nabad la gaara hatta balaga gaartaan gidigiinba Soomaaliyeed gabi ahaantiinba gidigiinba Soomaaliyeed gabi ahaantiinba niman garasho keenin waxaad garabka siisaanba guulaan qabiilnimo waxaad gudub adeegtaanba garnaylkiiyo gantaalada waxaad gura xambaartaanba gacal iyo walaal iyo waxaad shacab gumaadaanba gayigaan lahayn iyo waxay ciidu gubataaba guruf aan la garanayn waxaad diinta gelisaanba intaasoo la soo galay hadday guule dhalan weyday maxayna la gudboon xaajo waa laga gungaaray garba siman murtidii gaamurtiyo gabayadeedii dhe gubaabiyo wanaagan la rabay gabiba Soomaaliyeed guulaamo roob iyo daruur galacdeedii dhe goodigii talaax iyo darwiish gogoldhigiisii dhe geesigii Ismaaciil Mariyo gulucdii Mansaad dhe gudoonkii qamaam iyo salaan garasho waa yeeldhe garyaqaanka cali dhuuxa iyo gubar rageedii dhe gubaabadii sultaan timacadiyo gaarkii carankeen qurxankii hadraawi iyo fanaan midha gurkiisii dhe axmed guray gadiisii yahliyay garashadiisii dhe gurowgii gacan xaayo tashi farax galoleyde aan gobonnimo jacaylkii afyare gamashadiisii dhe geediga waday xasan muumin iyo geesiyaal jiray dhe garaafigii amiin artis iyo warar gacmeedkii dhe mid kalena aan idin guud maro saadu garataan gidigeed adduunyada kolkii dhidibka loo diijay guulaha ilaah baa unko geeye aadmiga galladuhu inoo yeelay baan cidina goynaynin garaad iyo aqoon baa ardiga lagu galgaalay waxa guul la gaara kolkay tala gurfooday gacmo wada jir baa lagu ridaa gibiye waaweyn gidigii nafluhu waa gartaan say ku galayaan innaguna sidoo kale haddaan daacadnimo geyno waynu gaari goobtaan rabniyo guula baarbaxay garashiyo iimaanka waxaan geliya laabtiin ماشي نبي موسى عليه السلام كيلو بحلك رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ايان الهي waxaan uga baryaynaa asagana inuu xilkaas una sahlo una fududeeyo wanaagna ugu abaal mariyo sandaladani waanu bixinay waana guushantii waa aqoonsanay sultaanka waana aqoonsanay mar kale mar afraad wala midnaynu ummadda Soomaaliyeed in Norway ka dhashay waxa xaqiiqa wax kasto oo aan wax ka aasnay laga bilaabo 1990 masaajidkii aan aasnay muxuu ahaa tawfiiq weeye maanta waxa Soomaali mideeyay weeye waxa Soomaali ku mideeyay sultaan waxa waa hogaamiye bulsho weeye hogaamiye bulsho meel mooranayo dadka meel baaqaariyo laakiin meel mooranayo meel uu ka weeyahay mar haddii isimka uu qaato magaca la yiraahdo sultaanka uu qaato wuxuu yahay waa hogaamiye bulsho maadaama uu naga tegay annagoo sagootinay wixii hiil iyo hoona la garab taagan iyo tala iyo dhaqan iyo dhaqaalaba ah haddaanu reer Norway wuxuu inoo hayay xilkii inoo hayay waa hawl culus haddaynu reer Puntland hawshaa inay banaanaato lama baa waa in isla caawado waqtiga ay joogno meeshii waxaana loo gartay gudoomiyaha guddiga dhaqanka odayada ee Norway laga bilaabo saacaddan inkastoo sultaanku wareejin doono أحمد عبد الرحمن محمد أحمد
shaqeeya waayo dadku haddaanu dhaqan lahayn oo odaya lahayn haba ma socda hawlo badan bayna qabteen ilaahay ha kaalmeeyo mursal salaad suldaan mursal runtii waxa weeye waa wada shaqaynay hawl adag baanu wada gallay waa nin xilkasa u qalama saldaniyadda loogu yeeray bulshadan qaaliga ah nabadoonnada shuyuukhda culimada aqoon-yahanka dhallinyarada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka aan horey usoo maray salaan kadib arrintan waa sagootin iyo xil wareejin marka hore marti uma ihi tolka meesha fadhiya xaashaa lilaahi inay doortaan tol baan leeyahay yidhaahdo mas-uuliyaddu waa takliif iyo tashriif maaha qofka takliif waxaa fuulaya culus culayskaas ayaa nina la dhacaa nina sida uu yahay uga soo dhalaa waxaan rajaynayaa haddii xilkaa aan doonayo ilaahay ila qabto inaan kasoo dhalaalo oo daacad kaga soo dhalaalo insha allah sheekh axmed waa nimaan wada shaqeynay oo nin sharaf laha waxaan ku wareejinayaa waa guddoomiyihii golaha dhaqanka jaaliyadda puntland